Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan kusoo jirnay barnaamijkeennii Adobe Illustrator oo aan ku qaadanayna casharadiisa basicska oo khaasatan aan ku jirnay toolska qaabka loo isticmaalo. Marka casharkeena maanta haddii la yiraahdo waxaan ku fahmi doonaa qaabka loo isticmaalo Shapebuilder toolka. Marka barnaamijka Shapebuilder toolka loo yaqaanayo waa noocaas oo kale shortcutkiisa haddaad u baahantahay inaad isticmaashana Shift plus M baad oran doontaa. Marka qaabka uu shaqeeyo si aan u fahanno marka hore kadib waxaan ku dhisi doonaa barnaamijkan aad buu muhiim yahay. Loogooyinka iyo waxyaabahaas lagu dhisan garayaa complicatorka. Marka haddii la yiraahdo marka hore si uu shaqeeyaan fahmayna kadib baynu loogo ku samayn doonaa insha Allah. Marka circle markaynu soo qaadano oo si aan u fahanno qaabka uu shaqeynayo circle-kana aan copy ka bixino. Copy markaad bixinaysana alt baad qaban kadib saas aad u jiidi doontaa. Marka si aad u fahanto si uu shaqeynayo waxaad samayn doontaa highlight baad saari dhammaantood kadib Shapebuilder baad tegi doontaa. Marka laba shay waa kuu soo bixi doonta hadda waa ujeedaa hadda imika markaad saa u saarto calaamadaas highlight-ka kuu soo bixi doonta oo selection-ka kan oo kale. Laakiin cursorka waxaa ujeedaa inuu calaamad plus laakiin isla cursorkaas haddaad alt qabato calaamaddu way isbedelaysaa waxaad arkaysaa inay minus tahay noqotay. Marka plus waxa weeye imika markaad u baahato dhowr shay waan samayn karnaa labadan shay hadda inaynu intan ka jarno iyo inaynu intan ka jarno iyo inaynu intan ka jarno iyo inaynu isku wada darno intaaba waan samayn karnaa. Marka haddaynu isku wada darayno waxaan samaynaynaa intan click hayno inaan saa ugu jiidanaa. Marka hadda way isku wada dhigan yihiin dhammaantood halkaas shay bay noqdeen. Marka sidoo kale haddaan ka laabano waxaad samayn kartaa halkaynu hadda imika highlight saarno waxaan samayn karnaa inaan alt haddaan la qabano intan baan ka dhex qaadi karnaa marka qaabkaasuu noqday shayga qaabkaasuu noo noqday. Waxaan sidoo kale samayn karnaa highlight saarno ayaynu labadan baan isku dari karnaa colorka marka haddaynu ka bedelo kan marka wakaas kii kale intaasaa laga jaraa qaabkaas saas uu ku noqday. Haddaad imika aad alt qabato qaybtan uu ka jari doonaa marka hadda qaybtan waxaad ka dhigan kartaa shape noocaas oo kale aad samaysan kartaa. Marka hadda shape markaynu qaabka u soo qaadano waxaan samayn karnaa Shapebuilder markaan soo qaadano qaybtan macnaha waan isku wada dari karnaa dhammaantood. Hadda hal shay baan iskaga dhignay saas oo kale uu ku noqday. Waxaan sidoo kale samayn karnaa intaan ku laabano Shapebuilder intaan ku laabano inaan inta space isku darno qaybtan waynu ka saari karnaa alt intaan la qabano intaan waan ka dhex saari karnaa. Marka wakaa sidaana waan ka dhigan karnaa. Marka waxaad samayn kartaa hadda qaabkan oo kale haddaad u baahan tahay shape noocaas oo kale labadaasaad isku dari kadib alt baad qaban intaas way kaa dhex baxaysaa marka. Hadda waa ujeedaa wax saas oo kale aan samaysanay noocaas oo kale. Marka qaabkaas u shaqeeya Shapebuilder toolku sidoo kale bil baad u baahan tahay inaad samayso bil labadan baad ka samayn kartaa Shapebuilderka labadan kadib waxaad samayn alt intaad qabato macnaha plus bay hadda tahay alt laakiin markaad qabato plus bay isku bedelaysaa kadib halkaas saa u jiidi qaybtaas way kaa baxaysaa bishii marka saasay kugu soo baxaysaa. Hadaynu mid kale soo qaadano waxaan marka arkaynaa hadda qaabka loogadan Twitter ayaa ujeedaa tii hore iska bedeleen hadda X iyo waxaas loo bixiyay marka tan aynu ku samayn doonaa Shapebuilder toolka marka waxoogaa aan Audacity iska yarayno kadib control qaabka loo isticmaalayo marka hadda waxaan soo qaadan doonaa circle stroke baan u bedelaynaa. kanun baad copy oran marka alt baad jiidi kadib baad sii dayn doontaa clickta.
qaabka markaad u dhamayso waxaad saari doontaa markaad qaabka u dhamayso kale waxaad saari doontaa highlight dhammaantood. Markaad highlight wada saarto waxaad aadi doontaa marka shape builder markaad aado marka hore waxaad iska saari doontaa waxyaabaha aad jaraysid kadib meelahan oo kale alt adoo la haya markaan alt la qabato isku day mar walba si ay kaaga jarmaan waxaas qaybtaha kore aad u baahnayn. meelaha qaarkood hadduu kaaga darsamana control 0 baad oran doontaa waad ka laaban doontaa. Soo yar dhaweyno qaybaha marka aan saas iskaga saarnaa inaan u baahnayn kuwan kale waxaan samayn doonaa iyagoo marka blast aan wadano calaamadda blast alt aan ka dayso ayaad saas ugu dari doontaa marka. dhammaantood marka inaad isku wada darto hubi meelaha qaarkood inaad ka tagta laga yaabaa. qaabkaas oo kale markaad isku darto saas kugu soo bixi doontaa meelaha qaarkood inaad ka tagto saas baad ku celin doontaa marka. kadib markay saas inoo tahay fiil haddaan u bedelno qaabkaasay noqonaysaa
waxoogaa practice badan markaa samayso si kasii qurux badan sidan baa u samayn doonta marka inaad practice garayso aad ugu celceliso isku day adaynu colorka isla colorkeedii buluuga adaynu siino marka waxoogaa practice badan markaa samayso hadda meelaha qaarkood on ka tagtagna waa jirta laakiin practice badan markaad ku celceliso sidan si kasii qurux badan baa u samayn doontaa marka logooyinka iyo waxyaabahaasa loo isticmaalaa shapebuilder toolkan marka cashirkeena shapebuilder toolka uga hadlayna halkaasaan ku ekeenina khayr badan baan idin rajeyna subxaanaka allahumma wa bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk